degmada Awrboogeyso iyadoo ku taala bartamaha magaalada Laascaanood iyo Ceerigaabo ayaa laga soo sheegayaa qaylo dhaanbaan oo ku aadan abaaro halakeeyay muddooyinkii u dambeeyay iyo biyo la'aanba sida ay soo sheegeen dadka ku sugan waxana ay xaqiijiyeen in roobabka guga aanay weli ka diin deegaanadaasi xoolihii iyo maatadiina ay ka haajireen intooda badan ugana haajireen meelaha roobku ku horeeyay muddooyinkii u dambeeyay iyadoo foostada biyaha ay waqtigan marayso degmada Awrboogeyso 350 shilinka Soomaaliga ah una dhiganta lacagta Mareykanka $15 loogana dhaamiyo Ceerigaabo iyo Laascaanood oo hilaadii u jira 185 kilomitir iyadoo ceelashii ku yeelay deegaanadaasina ay gureen intooda badan qaarna ay biyo yareeyeen abaaraha dartood haddaba mar qaybaha kala duwan ee saxaafadu booqasho ku sameeyeen deegaanadaasi ayaa waxa ay la kulmeen qaar ka mid ah dadka deegaankaasi oo ka warbixinaya xaaladooda nololeed iyaga oo hay'adaha caalamiga iyo dawladaha ay ka codsadeen in haddii ay la soo gaari karayaan kaalmo bini'aadantinimo sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo gaarsiiyaan dhaqaale meel dawladda yar waan ognahay dhaqaale inta kama rabno laakiin haddii alla noogu dhibo waan ka sugaynaa sidoo kale hay'adaha dawliga iyo kuwan dawliga ahayn iyo dawladda yar hadii xoolashada badanana waan u baarugayaga iyo dhalinyarada iyo dhamaantay waxaan u leenahay urur dhalinyaro oo wiil iyo gabdha oo 15 gabdhood iyo 15 wiil iyo ururkayaga iyo ururka ragga dhammaan waan isku tiirsanay kuwa kalena waan idin soo gudbinaynaa sidoo kale waxayna gaaray deegaanadaasi mas'uuliyiin ka socday maamulka Khaatumo State of Somalia oo uu ka mid yahay Xasan Cali Yuusuf agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maamulkaasi waxana mas'uulku hadaladiisii ka mid ahaa dad aan muraad ka lahayn ay ku takrifalaan oo waxay doonaan ka sameeyaan wixii ay doonayaan ka fushadaan wixii aanay doonayna indhaha ka tuuraan waxa kaliya ay adduunyada ku qancinayeen ama dadka Khaatumo lagu qancinayay waxay in inta loo yimaado la yiraahdo Somaliland bati oo Somaliland maxaan ku nahaad ma qabtaan 10 askari baan mushaaridiin siinaa Khaatumana halay aan Puntland saasoo kale iyaduna 10 iyo 10 ama 20 iyo 20 bay hareeraha magaalooyinka dhigi jirtay magaalada gudaheeda waxa ku nool ama han noqoto dhalinyaro ama hooyooyin ama dad waxyaala ama orimo ama arday yar muraad lagama geli jirin 10 iyo 10 askari unba koona kasta carra Khaatumo way taagan hadalka saafadhe ku dirarka maqaayadaha la sugu yimaado iyo ko markaas halkaas la iska hor keenay oo la yiri adiguna Soomaaliland u dood adiguna Puntland u dood wax dhulkan shaqo ku leh oo u doodaya mishu dhanka kale magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa ayaamihii u dambeeyay waxa ka daayay roobabka raxmaadka Rabbi ee guga kuwaasi oo si weyn uga daayay gudaha magaalada iyo nawaaxigeedaba waxaana la arkay roobabkani oo biyo dhigay gudaha magaalada Laascaanood sidoo kalena roobabkani ayaa maansheeyay deegaano badan oo ka mid ah gobolka Sool iyadoo dadka xoolo dhaqatada ay rajadoodu ku xiran tahay dhibicda roobka ay aad ugu diirsadeen roobabka waqtigani daay oo ay baahi aad u weyn u qabeen waxana looga soo hayaamay roobabkani deegaano badan oo dhanka nugaasha oo aanay waqtigani roobabkani ka diin Maxamuud Saleebaan Somali Sat TV magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool